Security Maahan kaliyata hacking, samayn, firewall isoo looga gudbo iyo dhamanba waxyabaha kale ee ku aragto aflamta. Hadii taasi u qadaatona waxbadan ayaad garenaysa. Ka hor intaadan baran security waxa jira waxyabo badan oo ay aad muhim u tahay si fiican fahanto. Dadbanina qodobadani ma daneeyan marka ay bilaabayaan security-ga waana mid kamid ah arrimaha keenay inay sadaliyad badani kulka gaadhin fiilkan oo dhexda ku joojiyaan. Muuqaalkeena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa 5 qodobti kuwaas ay tahay Ogatid ka hor intaadan bilaabin ama aad u sii dhexgelin security-ga. dhawaadanyaro security-gu waa caalam aad u xiiso badan kana kooban isku darka teknolojiyad, psychology, istaraatiijiyado iyo hal-abuur. Laakiin inta ugu badan dadka ku cusub waxay focus ka saaraan kaliyata, tuliska iyo qaybtaas teknolojiyada. Waxaan ilaawaan dhamanba qaybaha kale ee muhiimka ah kuwaas oo si dhabta ah sameeya farqiga u dhaxeeya guusha iyo guuldarrada security-ga. Haddii aad rabto inaad guul ka gaadho security, waa inaad hagaajisaa waqti ku bixisaa asaaska aad ku bilaabayso. waxaa kamid ah inaad ogaatid oo baratid conceptyada laga yaabo inaad ku caawisto ee ka horeeya intaadan baran toolska xiisaha badan. qodobka koowaad ee muuqaalkan ku soo qaadanayna waa in security uusan ahayn kaliyata farsamooyin teknolojiyadeed balse waxaan ka maqnayn kuwa teknolojiyadeed. haddii aad daraasayso weerarada hacking-ka ee caalamka dhaca waxaad arki kartaa in intooda badani ay ku bilaabmaan khaladaad uu qof sameeyey. hackeriskuna waxay ka faa'iidaystaan dabeecadaha bani'aadamka sida aaminaadda, cabsida, degdega si ay u dhaafaan dhamanba sistemyada aadka u adag ee kombooniyadu dhigtaan si ay u difaacaan xogtooda. tusaale ahaan social engineering-ka sida in la sameeyo phishing ama wicitaano scam ahi uma baahna in la jabsado firewall. waxay ku tirsan yihiin oo isku halleeyaan in la khiyaameeyo qof si ay u helaan xog ay ku dhaafi karaan sistemyada difaaca ee adag ama uu qofkaasi taabto oo kili gareeyo link malware ku jiro. muhiimadda qodobkani waxa weeye inaad fahanto in dabciga ama psychology-da bani'aadamka ay security ka dhigaan mid effective ah oo saameyn weyn ay ku leeyihiin. wayna wax badan ka barataa qaabkay hackerisku uga faa'iidaystaan dabcigani. waxaad samayn kartaa inaad akhriso emailada phishing-ka, qaabka ay u qoran yihiin iyo erayada ay adeegsanayaan. waa kuwo qof kasta ku qancin kara inuu xog bixiyo ama linkigaasi u taabto. qodobka labaadi waa in security uu ka kooban yahay leeyaro kala dambeeya. ma jiro hal tool kaasi oo ku siin kara system ammaan ah 100%. si security uu noqdo mid effective ah waa in loo dhiso sida castle-ka oo kale ama qaacada oo kale. albaabo badan oo kala dambeeya, gidaaro waaweyn iyo dhammaan waxyabaha kale ee lagu ilaalinayo amniga. tusaale ahaan haddii hackerska soo dhaafaan antivirus-ka systemkaasi waxa lagu qaban karaa firewall-ka sidaas oo kale layer kasta waxa ka dambeeya mid backup ah kaasi oo ka awood badan. qodobkani wuxuu ku sahlayay inaadan ka fikirin in sistemyada caalamku ay isku halleeyaan hal meel oo si fudud loo target-garan karo. taasi beddelkeedana ay adeegsadaan layers kala dambeeya mid kastana ay muhiim tahay inaad gaarkiisa barato. qodobka saddexaadi oo waxa loo yaqaano threat intelligence. security-gu maahan kaliyata in la ilaaliyo system iyo xogtiisa. waxa markasta dhici kara isku day hacking. haddaba waxyaaba markaas oo kale aadka muhiimka u ah waxaa kamid ah in la sameeyo threat intelligence oo ah in la daraaseeyo oo xog badan laga soo helo cidda attackan fulisay, toolska ay adeegsanayeen iyo qaabka ay u fuliyeen attackan. tani waxayna siinaysaa inaynu qiyaasi karno kana hortagi karno attacks-ka dhici kara. hackerisku waxay markasta sameynayaan isbeddelo waaweyn. threat intelligence-gana waxaynu kula socon karnaa isbeddeladaasi. muhiimadda qodobkayna waa inaad wax ka baratid noocyada iyo qaabka kala duwan ee hackerisku u sameeyaan attackaasi si aysan hadhow kugu noqonin wax cusub. qodobka afraadi waa kill chain. weerarada cyberku waxay raacaan waddo la qiyaasi karo taasi oo lagu magacaabo kill chain. inaad fahamtid silsiladda ay raacayaan cyber attacks-kuna waa qodob aad muhiim u ah intaadan aad u sii dhexgelin fiilkani. silsiladdan waxay ka bilaabataa in xog lasoo ururiyo oo targetkii la darso, in la sameeyo payload ama malware-kii iyo linkadiisii, in payload-kaasi la geeyo ama loo diro targetkii, in installation lagu sameeyo malware-kii iyo in la controlo systemkaasi si loogala bixi karo xogtii la rabay ama loo joojiyo shaqadiisa. inaad stepskan si fiican u taqaanid waa arrin aad muhiim u ah kana caawin kara inaad yarayso khatarta uu attackaas yeelan karo. tusaale ahaan inaad ku joojin karto marka la isku dayo in lagu soo dejiyo malware systemkaasi. markaad daraasayso attacks-ka dhacana waxaa ku muuqan kara in mid kasta uu lahaa step lagu joojin kareeyay. qodobka shanaadi waa in security-aad ku baran karto almost computer-kaaga oo kaliyata mana baahnid haysato setup waaweyn. dhalinyaro badan ayaa weli aaminsan in security aysan bilaabi karin ilaa ay helaan computers ama screens badan. waxaa taasi postkeeda ku buuxinaya adeegsiga virtual machines-ka. waxaad virtual machines-ka ku adeegsan kartaa Kali iyo toolska aadka u badan ee ku jira Kali Linux. waxaad ku samayn kartaa virtual labs ka kooban computers kale oo virtual ah. marka ha ilaawi in computer-kaagu wax badan kuu qaban karo aadna ku baran karto qaybo badan oo kamid ah security-ga. muuqaalkeena maanta intaas ay ku egyahay. xasuusnoo 5 qodob haddii aad ku cusub tahay ama aad muddo kooban ku jirtay saaxadda security-ga waa laga maarmaan markastana waxyaabo ku saabsiisani way kaa hor iman doonaan. la wadaag muuqaalkan asxaabtaada kuna soo biir Kaytag Soomaali. mahadsanid.